السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هذا وضيال ملك سؤال جوكتين كسر وضع وركة تلفزيون عالمي هي سويال تي في وهذا هنا وكلايدين سومرنا وضع وركة واحد لسه عدسينا إياها أنا وأمها بالشرع اسمه ما بعلم قضبضها وقدور كرون وركة يجنا واحد كمدا وسيرة كترسل حكومة ده قل بدوك أو ما تسوي لو سود ومقالة ورنير دولة دجان كالصومالية إثيوبيا taliyaha ciidanka qaybta 12aad oo maanta inta booqday xirada harqaboobe oo qaar kamid ah askar loogu soo xirayay tababar duqa degmada gaalkacayna wuxuu xariga ka jiray suuq cusub ay yeelanayso degmadaasi qodobada kale oo aad ku maqli doontiin waxa kamid ah warbixin ay kaga diyaarinay waxa uu la qabsoomilayaa shirka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka oo muddo isku dul jooga magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan ee u diyaar garoow warka faahfaahsan isku soo laabasho wanaagsan daawadayaashana qiimaha leh hadii aynu ku bilowno wasiiro ay hogaaminayaan wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdi Jaamac Cabdi Waayeel iyo waliba wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa maanta ito lagu soo dhaweeyay degmada Wardheer ee gobolka Doolo ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya hadaba waxa haatan qadka si toos ah ugu jira wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi anagoo wax ka weydiin doona safarkooda maanta ay ku tageen magaalada Wardheer wasiir soo dhawow daay maqlays وما سنت صاحب ودوه وما bal waxaad inooga warantaa safarkaaga maanta iyo waliba adiga iyo wasiirada wuxuu ku qotamay runtii waa ma santahay waan u mahadcelinayaa TV-ga Sooyaal safarkan waxaan maanta uga soo ambabaxnay dowlad goboleedka Galmudug gaar ahaan degmada Cabudwaaq ayaan saakay ka soo ambabaxnay waxaanan ballan ku lahayn degmada Wardheer magaalada Wardheer ee gobolka Doolo caasimada u ah ee dowlad deegaanka Soomaalida kulanku wuxuu la xiriiray iskaashi xiriiro aan isdhaafsanay maamulka halkan ka dhisan dowlad deegaanka Soomaalida wasiiradooda iyo hoggaanadooda gaar ahaan dhinaca amniga iskaashiga ganacsiga iyo dhaqaalaha wasiirada qaabilsan iyo horumarinta wasiiradaas iyo hoggaanadaas ayaan xiriiray isdhaafsanay kadibna waxaan ilaahay qadaray maanta inaan halkan ku ballanno kulankii koowaad ku yeelano degmadan wuxuuna kulanku daaran yahay oo ujeedkiisu yahay kulan laba casho qaadanayaan rajeynaya inuu noqdo ujeedaduna waxay tahay xoojinta nabadgelyada xuduudda ayaa ka dhaxaysa Galmudug iyo dowlad deegaanka Soomaalida dad walaalo ah ayaa labada dhinacba ku nool oo wada degan nabadgelyada xuduudaas dheer waa number 2 uu ahaa qodobka labaad waxa weeye iyo dadkaas walaalaha sidii ay daris wanaag iyo walaaltinimo ku wada noolaan lahaayeen walaalo beelaha xuduudaha ka dhacaya jira mararka qaarkood sidii loo xakameyn lahaa isagana kaashan lahaa sidii dadka dambiilayaasha ee dhibaatooyinka ka geysta marka wasiirada safarkiina wuxuu ku qotamay iskaashiga iyo saxiixyadaas wasaaradaha iyo waliba magaranaysa labada dowlad deegaanka iyo dowlad goboleedku ay isdhaafsanayaan waa iskaashiga xagga ganacsiga dhaqaalaha waxaa jira ganacsi xooggan oo labada maamul dhexmara waxaa jira badeecooyin u kala goosha waxaa jira maaragtay iskaashi xagga arrimaha bulshada waxbarashada iyo caafimaadka iyo arrimo badan oo arrimahaas la xiriira oo maamulada muhiim u ah ayaan hadda wasiiradii arrimahaas waa tahay anagoo soo koobayna wasiir anagoo soo koobayna markii la dhaho dadka qaarkood iyo waxyaabaha wararka qaarkood waxay sheegayaan inuu heshiiskiina uu qayb ka yahay in kastankii dowlad goboleedka iyo waliba dowlad deegaanka ama sidoo ganacsigu uu kala socon lahaa ama uu kala gudbi lahaa ay qayb ka tahay oo iskaashi xiriir dhinacyo badan arintaas kastanka iyo in dekadii hobyo iyo arrimahaas maxaad xogaa naga siin kartaa iskaashiga arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha ganacsiga soo galayaan waa ajenda ballaaran oo hadda aanan halkan ku faahfaahinayn marka uu soo dhamaado ayaan wixii laga gaaray faahfaahintooda sheegi doonaa si publicly ah labada maamul bay ku sheegi doonaan laakiin
ajendaha dhammaan way ku jiraan arrimahaasi aad baaxday oo waa tahay wasiirka qadka taleefka ayaa ka go'ay haddaynu dib u helno wararka iyaga dambe ayaad ku daawan doontaan warkaas oo dhammaystiran taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Sanka ayaa maanta inta booqday xirada Harqaboobe ee magaalada Gurceel halkaas oo la filayo in cutubyo ka tirsan qaybta 12aad uu tababar dhawaan ugu soo xirmo sida warbixinta warkan ay inoogu soo dirtay wariyahayaga Xamdi Diiriyacli ciidan qaran ayaanahay allan sidee ayaanahay cawase xambaanahay miskiin caawiyaanahay taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Cabdi Cali Sanka ayaa xirada tababarka ciidanka ee Harqaboobe ku booqday ciidamo tababar dhameystay waxaana uu taliyuhu warbixin ka dhageystay saraakiisha iyo ciidanka tababarka ugu jiray xirada Harqaboobe taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in dhawaan ciidanka la qalabay doono ayna qayb ka noqon doonaan howlgalka al-shabaab lagaga xoreynayo deegaanada ay kaga sugan yihiin Galmudug waxaan rajaynayaa dugsigan wuxuu ka mid yahay warshadaha dalka ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waqti dheer waxaa ku jiray ciidan maanta ah isyaano oo ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka baxay dhibowgi ciidankan waxa u dhiman waa in aan u keeno hubkiisi oo la hubeeyo laakiin wax kale oo u haray ciidankan ma jiro wax kasta oo xuquuq ah oo ciidanka qalabka sido ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay qayb buu ka yahay waana leeyahay ciidankiina sharafta leh iyo ciidanka ammaanka iyo madaxda dugsiga iyo macallimiinta sharafta leh oo ciidanka soo tababartay waxa la inkaga baahan yahay oo waajibaadka idin saaran waxa waaye in la ilaaliyo wadajirkii iyo in la ilaaliyo haybadii qaran oo ciidan in la ilaaliyo waxa keeni karo dhibaatada ama ciidanka u keeni kara kala faquuqa ama ciidanka ku abuuri karo kala tagga iyo dhibka arintaas meesha inay ka baxdo weeye ujeedada munaasabadan maanta dugsiga Harqaboobe waxaan rabaa oo ninka codsanayaa insha Allah bidnillaahi kariim ina u diyaar garowdaan meesha hadda aan ugu imid qaybta oo aad soo gaarsiiseen inaan si xawli ah hadduu Ilaahay idma uga dhaqaaqno si mar dhow loo gaaro deegaamo badan oo nabadiidku in la xoreeyo ayoolkeena koowaadna wuxuu noqon doonaa ceelbuur hadduu Ilaahay idmo Xamdi Diiriyacli Sooyal TV Dhuusamareeb duqa degmada Gaalkacyo ayaa maanta taxarig ka jiray suuq cusub ay yeelanayso degmadaasi qaasatan dhinaca Galmudug kaas oo la dejiyay qaar ka mid ah dadkii dhawaan laga burburiyay meelaha ku yaala wadooyinka hareerooyinkeeda sida warbixinta warkaan inoogu soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdullaahi Sidi duqa degmada Gaalkacyo Galmudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo helinayo ku xigeenkiisa Maxamed Cabdi Cilmi iyo qaar ka mid ah xogayaasha dawladda hoose iyo xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo ayaa xarig ka jiray suuq cusub oo dawladda hoose ka hirgelisay suuqa weyn ee magaalada Gaalkacyo suuqan cusub oo ku yaala agaarka suuqa ariga ayaa dawladda hoose ugu tala gashay in dadkii hore looga baneeyay goobihii la burburinayay ay degaan isla markaana si bilaash ku degaan qaar ka mid ah ganacsatada suuqan sida bilaash ku degi doona ayaa ka mahad celiyay dawladda hoosena waxa ay ku amaaneen doorkooda ku aadan in dadka shacabka loo sameeyo dib u dejin soo dhaweeyna maayirka qayb badan la siiya jara kala suuqa wanaagsan oo uu noo dhisay aad iyo aad baan u soo dhaweynayna alxamdulillah rabbil alamin ilaaha ku maasan isku kaya keen masinka sharafta leh anagoo ah dad islaam ah oo nabad qaba waan bogaadinaynaa insha Allah taala madaxda maayirka ciidanka waa salaamintihiin boqortooyada balaafarta ku salaamintihiin waa mahadsantihiin qorax idla ah baxaraash ku hayay meel qaboob oo leexawle ba ay keenteen way ku mahadinayaa ilaahay weyna waaxidaadtii tii raagtay oo nimco ku raagtay Allah idinka yeelo caafimaad badan oo barako leh Allah idinsiiyo waa u jeedaa sida laga dhigo waana waxa wadooyinkii waana la furin magaaladii waana la aayay waa shaqaysanaa alxamdulillah dhankiisa duqa degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa asna sheegay in shaqadan ay sii wadi doonaan iyadoo ay barbar socoto in dadka laga wareejiyo goobaha loo sameyn doono dib u dejin runtii waxaan rabaa si gaar ah u mahad celiyo dhammaan xildhibaanadii shaqada waday iyo agaasimayaashii
runtii nagu matalayay aragtideennii iyo shaqadii horumarineed aan ka rabnay degmadan inay si firfircooni leh daacadnimo leh ay runtii nagu matalaan shaqadii aan u idmanay mar kale iyo mar kale waxaa la aad iyo aad uga mahadsantihiin ganacsatada suuqa waxaa leeyahay aad baan kaga mahad celinaa inaad waddooyinkii aqbasheen inaad bannaysaan kadibna aad naga aqbashaan suuqa idin diyaarina inaad si nadiifa u degtaan waxaan ilaahay kaga baryaynaa ilaah inuu idiin barakeeyo suuqa insha allahu tacaala waa ganacsigiina ilaahay idiin barakeeyo dowladdiina hoose marka ay ka shaqaynaysa horumarinta ee jidadka ay banaynaysay ujeedkeedu ma ahayn in idinka la idin raro ee aan laydinka fikirin meecda in la idin dhoobo in la idinla qaybsado waxa aad dareemaysaan baa naga goonayd insha allahu tacaala ilaahayna waa nagu guuleeyey wejigii koowaad inta kale dhiman ee u baahan in dibudejin loo sameeyana insha allahu tacaala dagaalkeeda waa ku jirnaa ee suuqa maanta iftaax ee xarag jarnay ee dowladda hoose soo dagac tirtay diyaariyeen runtii dagaal ka dheer loo soo maray ee maanta ay halkan dib u degeen 49 qofood oo ka mid ah dadkii ka soo barakacay waddooyinkii la banaynayay aad iyo aad baa ugu faraxsannahay mar kale iyo mar kale waxaa leeyahay ilaahay wixiina idin barakeeyo annagana waxaan ku garab taagannahay insha allahu tacaala wax walba oo suurtagal ah in ay aan qaban karayno insha allahu tacaala ay ugu horeyso maadaama kharash idin galay aad guurteen axwaal adag aad ku jirtaan si gaara runtii inaan ugu gurmino suuqan Abdullahi CD Soyal TV Galkacyo doorashada Soomaaliya ayaa waxaa hareeyay khilaaf aad u baahsan kaas oo ka dhex taagan maamul goboleedyada qaar iyo waliba madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya haddaba khilaafkaasi maxaa sababay muxuu ilaa iyo haatan la taagan yahay waxaa warbixin inooga diyaariyay arrimahaasi wariyahayaga Nasteex Cabdisalaam Barre oo ka soo diray Muqdisho waxaa ku sugan wali qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya kuwaas oo toddobaadkii hore Muqdisho u yimid ka qaybgalka shir ka dhacaya xalane kaas oo ay qabanqaabinayso beesha caalamka war ka soo baxay goor dhaweyd wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswan ayaa lagu yiri waxaan xusaynaa inaan doonayno inaan siino Soomaalida taageero dhanka dhaqaalaha taas waxaa naga codsaday xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaana ku raacay xafiiska madaxweynaha waxaan diyaarinaynaa teendho ama hool ku yaala garoonka diyaaradaha waxaana bixin doonaa dhaqaalaha gobolada dalka looga keenayo ergooyinka maamul goboleedyada dalka sidoo kale AMISOM waxaan kala shaqeynaynaa sugidda ammaanka waxaan rajaynaynaa in wada hadalladaasi ay sii socon doonaan iyagoo ka dhacaya meel ammaan ah sida ay codsadeen ama isku raaceen madaxda Soomaalida shirkan ayaa ilaa hadda la mudayn waqtiga rasmiga ah oo furmayo warar soo baxaya maalmahan ayaa sheegaya sababta shirku ilaa hadda u cakiran yahay in ay tahay in aysan ku qanacsanayn goobta shirka qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda sare ee dowladda federaalka wararka ayaa sheegaya in maamulka Galmudug iyo Koonfur Galbeed ay diidan yihiin in goobta ay doonayaan shirku in uu ka dhaco madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland oo iyagu horay u dalbaday in shirka lagu qabto goob ay beesha caalamku maamusho si amniga iyo qodobada ka soo baxa ay u damaanad qaado waxaa baaqday shir ilaa 3 jeer oo isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir madaxweyne Farmaajo iyagoo shirkaasi markastaba ay diidayeen madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland oo markii dambe shuruud kaga dhigay beesha caalamka oo baaqiyo isdaba joog ah u direysay in shirka lagu qabto goob ammaan ah si kastaba ha ahaatee doorashada Soomaaliya waxaa hareeyay khilaaf xoogan oo ka dhashay heshiisyo la isku raaci waayay taas oo horseeday in doorashadu xilligeeda ku dhici weyso Nasteex Cabdisalaam Barre Soyal TV Muqdisho iminkana akhbaraadka dibadda madaxweynihii dalka Tanzania ayaa habeennimadii xalay ahayd ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Dar es Salaam ee wadankaasi madaxweynihii wadanka Tanzania John Magufuli ayaa xalay geeriyooday sida ay xaqiijisay Samia oo ah madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi oo dadweynaha xalay kala hadashay telefishinka qaranka ee wadankaasi Tanzania waxay sheegtay Samia in madaxweyne Magufuli uu ku geeriyooday isbitaal ku yaala Dar es Salaam oo ku jiray ilaa 6 bishan Maajo saddexdii toddobaad ee la soo dhaafay Magufuli muuqaalkiisa lama arag iyadoo ay jirtay hadal hayn ah in uu geeriyooday wuxuu Magufuli ahaa 61 jir sababta geeridiisana lama sheegin balse warar hoose ayaa sheegaya in uu geeriyooday xanuunkan halista ah ee COVID-19 Magufuli ayaa markii ugu horeysay ku guuleystay madaxweynenimada sanadkii 2015 wuxuuna la kulmay eedeymaha uga yimid wadamada reer galbeedka iyo xisbiyada mucaaradka ah taas oo ku aadaneed inuu duminayo dimuqraadiyadda
wuxuu ahaa nin aad ugu adag siyaasadaha ka soo horjeeda isagoona riixi jiray dhanka kaleetana wuxuu aad u necbaa mucaaradka dalkiisa guud ahaan daawadayaal qodobkaas ayaa u dambeeyay war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray oo aad ka daawanayseen telefishinka caalamiga ah ee Sooyaal warka waxaa idin la socodsiinayay anigoo Mahad Bashiir Cismaan Macalin dhinaca farsamada iyo kaamirada waa Farxaan Anshax intayna warkan warkii ku kulmayno waa dhammaan bahda Sooyaal TV oo idin la siyaasi nabadgelyo